madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu iminka u muuqanayaa inuu galayo go'doon siyaasadeed oo dhinac walba ah gudaha dalkana waxa ka dhismaya isbahaysiyo ballaaran cadaadis xoogganna waxa uu ka imaanayaa beesha caalamka sida ay ku waramayaan ila xog ogaala oo ka tirsan xisbul xaakimka iyo waliba dadka siyaasadda falanqeeya ee ku sugan gudaha wadanka Soomaaliya shirka ka dhacaya magaalada Kismaayo ayaa noqonaya culays ballaaran oo hadda ay wajahaysa filla Soomaaliya shirkan ayaa waxa isugu imaanaya xubno kala duwan oo siyaasiyiin ah oo miisaan culus ku leh talada dalka iyo waliba geedi socodka doorashooyinka la filayo Soomaaliya inay ka qabsoomaan waa mare waxa halkaas isugu imaanaya madaxweynayaal talahaya oo ka tirsan maamul goboleedyada dalka kuwaas oo diidan hanaanka filla Soomaaliya ay hadda wax u wajahayso sidoo kale waxa iman doona siyaasiyiin horey u soo qabtay talada ugu sareysa wadanka hadii ay noqon lahaayeen madaxweynayaal ra'iisul wasaareyaal gudoomiyaal baarlamaan iyo sidoo kale xubno ka soo mid noqday qaybaha kala duwan ee golayaasha dalka uu leeyahay shirkan waxa lagu unki doonaa golaha mustaqbalka qaranka oo ay ku midoobi doonaan siyaasiyiinta halkan ku shiraya waxana ka soo baxaya shirkan baaqiyo kala duwan oo lagu eegayo jihada rasmiga ah ee Soomaaliya ay aadi doonto dhinaca kale marka aad Muqdisho eegto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xisbigiisa JSP waxa ay qabanayaan doorashooyin muran badan uu ka taagan yahay sharciyadooda laga soo bilaabo guddiga doorashada oo lagu muransan yahay marka la fiiriyo hanaanka loo dhisay sharciyada loo maray iyo waliba in siyaasadda dalka aan heshiis looga ahayn taa waxa si dheer in dadka doorashooyinkan ka dhacaya Muqdisho codeyn doona ay u badnaan doonaan askarta dawladda oo dharka laga bedelay hadii ay noqon lahaayeen booliiska iyo nabad sugidda sida ay ku waramayaan mucaaradka dawladda Soomaaliya inta waxa dheer shaqaalaha rayidka ah ee dawladda federaalka ah kuwa ku meel gaarka ah iyo sidoo kale shaqaalaha gobolka Banaadir ayaa lagu qasbayaa doorashooyinkan in ay codeeyaan oo ay qayb ka noqdaan taas oo marka lagu akhriyo qanuunka doorashooyinka iyo xeerka shaqaalaha rayidka iyo kan booliiskaba doorashooyinkan far badan ay ku godan tahay sida mucaaradka ay ku doodayaan sharciyaqaano badanna ay banaanka soo dhigaan inta waxa si dhaafsan dawladaha taageera Soomaaliya ayaa dhinaca kale culays adag ku haya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo nidaamka talada haya ee filla Soomaaliya hadda jooga waa mare dawladaha qaar waxa ay joojiyeen kabkii ay dawladda Soomaaliya siin jireen wasiirka wasaaradda maaliyadda Biixi Iimaalcige ayaa u sheegay wariyaasha in dawladda Turkigu ay sanadka bixi weysay kabkii miisaaniyadeed ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay siin jirtay dawladaha Ingiriiska Mareykanka midowga Yurub iyo qaramada midoobana dhaqaale dawladda Soomaaliya ay ku taageerayeen ayay meesha ka saareen culaysidaasi jira darteed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kabkii miisaaniyadeed oo dhowr maalin ka hor loo fasaxay 3 maamul goboleed waxa uu ka qaatay min 1 milyan sida ay sheegayaan qubro lagu kalsoon yahay oo ka shaqeeya hay'adaha maaliyadda lacagtaasi waxay ku dhacday akoonka shirkad gaar ah oo filla Soomaaliya xiriir la leh taas oo la leeyahay hadda lacagahaasi waxa lagu qabanayaa doorashooyinka halka madaxda maamul goboleedyada muddo dhaafka ah ee talada iska fadhiyana loo sheegay in culaysyo badan oo haysta laga qaadi doono qaarkoodna loo ballan qaadaba talada inay iska sii joogi doonaan laakiin marka la eego xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya hadda wajahayso iyo geediga xisbiga JSP waxa jira kala aragti doonashiyo badan oo taala waa mare waxa ugu horeeya ee la isla soo qaadaya waxay tahay hanaanka doorashada ka dhacaysa Muqdisho loo ololeynayo aan ku kaana qaar kamid ah dalalka dimuqraadiga ah Kenya oo kale oo kamid ah dalalka Soomaaliya oo wadaagta yihiin hanaanka doorashooyinka guddiga la yiraahdo IEBC oo ka tali doorashooyinka maamula xisbiyada waxa uu ogol yahay inay farabataan sidoo kale waxa loo asteeyaa maalin ay manifestooyinkooda soo bandhigaan dadkana ay la hadlaan kadibna waxa la gaaraa waqtiyo loogu talagalay in aanay dhicin doorashooyinka aanay dhicin olooyinkaasi ka hor marka doorashadu ay soo dhawaato laakiin marka aad Muqdisho eegto xisbiga madaxweynaha ayaa meel walba taagan kaas oo lagu bixinayo dhaqaalihii qaranka uu lahaa sida mucaaradku ay ku doodayaan hasaatee waxay su'aali ka taagan tahay
marka la eego doodaha ka imaanaya bulshada rayidka ururada jaamacadaha iyo waliba ururada dugsiyada ay ku midoobeen ee gobolka Banaadir waxay dhamaantood muujinayaan inay walwal ka qabaan sida wax u socdaan goobihii waxbarashadana loo rogay meelo madaxweynaha iyo dawladdiisu ay isku dooranayaan iyadoo dalka uusan mucaarad hadda tartamaya uusan ka jirin laakiin waxay su'aali ka taagan tahay madaxweyne xasan sheekh shirka Kismaayo ma soo celin doonaa oo mayal adayga lagu tuhmayo miyo meesha ka saari doonaa bise dhinaca kale waa si mayal adkaan doonaa oo Soomaaliya waxay qaadan doontaa waddo kale oo road map ah sida kii Embagaasi oo kale oo madaxweynaha oo talada jooga beesha caalamku ay ku qasbanaatay in dawladnimada Soomaaliya mar kale dib loo baadi goobo taasi ma filayna inay dhacdo